Waaya soo dhawaada inkastoo isbuucan lagu dilay dalka koonfur afrika muwaadiniin soomaaliyeed haddana waxaan xog fiican ka helnay muwaadin soomaali oo lagu dilay deegaan la yidhaha khaliija magaalada cape town ee dalka koonfur afrika. dabcan cismaan abuukar ayaa la yidhi allah u naxariisto, muwaadin aad u wanaagsan ayuu ahaa sida ay noo xaqiijiyeen dad ahalkiisa ah aadna u yaqaanay. waxaa jirto xog halis ah oo aan helnay oo dadka soomaalida ee lokeeshinada ku shaqaysto aysan intooda badan ka warqabin, laakiin baaritaan iyo xogogaalnimo iyo waraysiya aan sameynay aan ku ogaanay markii la dilay cismaan abuukar allah u naxariistay kadib. waxaa la leeyahay waxaa jirta koox shufta ah oo tuuga ah oo ka madax bannaan kuwa leejooyinka qaato oo u shaqeeyo kooxo etoobiyaan ama ganacsata etoobiyaan, kuwaas oo ay u qabtaan hawsha ay u diraan waa hidmaano qarsoon oo aan la arag. waxaa la leeyahay allah u naxariisto cismaan abuukar arrintaas ayaa dhimashadiisa sabab u ahayd, inkastoo xaqiiq buuxda aan la heli karin, laakiin waa inta badan siyaabaha la isku raacay. allah u naxariisto nin aad wanaagsan uu ahaa, dadka inta badanna ay yaqaaneen magaalada iyo lokeeshinada ayaa waxaa leeyahay ninkaas ganacsigiisa dadka ku firfircoon ayuu ahaa oo horumarka ka sameeyo isla markaana mar walba upgrade-ka ku sameeyo. waxaa la leeyahay marka upgrade-kaas uu ku sameynaya ayaa waxaa xoogaa jealous ka noqday oo ka maseeray niman u agdhowaa oo etoobiyaan ahaa, kuwaasoo laguna yaqaanay inay dhacdooyinkan sameeyaan, lokeeshinada qaar ay ka sameeyaan. kuwaas ayaa waxaa usoo diraa la leeyahay tuuga, ayagu gacantooda ku dilmaayeen, tuuga ayay usoo direen, tuugada ayaana u disha dadka. kuwaas tuugada ay usoo diraan ayuu ka mid noqday marka cismaan abuukar oo isbuucan lagu dilay deegaanka khaliija. dabcan muwaadinkan waxaa la dilay khamiistii, weliba galabnimo ayaa la dilay isagoo dukaankiisa iska quruxsaday, iska habaystay, goob ganacsi ka dhaegday. nin aada u shaqo badan ayuu ahaa sida dadka ay sheegeen, allah u naxariisto, daacad ah, ahlu salaad ah, islamarkaana shaqadiisa ka adag. waxay u quuri waayeen shaqadiisaas iyo ganacsigiisaas u quruxsaday. dadka ganacsatada ah ee deegaankaas ku nool waxay sheegeen in nin laga nabadgalo uu yahay, islamarkaana nin shaqadiisa un ka adkaa ayuu ahaa. marka arrimaha noocan oo kale waxaa aada loogu bartilmaameedsadaa dadka soomaalida, waayo inta badan hadda waxay ku soo ururtay lokeeshinada soomaali iyo etoobiyaan ayaa ku badan oo ku shaqaysto. lokeeshinada qaar soomaalida u badan etoobiyaanka ku yar, kuwa qaar etoobiyaanka ku badan soomaalida ku yar. dukaamadan waa isku agyaalin ganacsiga kolley ninkii yaqaano lokeeshinada ama xaafadaha isku raranka ah ee laga shaqaysto. marka waxay bilaabeen la leeyahay in qofka dukaankiisa markuu inuu ka shaqo badan yahay uu arko. dhanka magaalada soomaalida waxaa lagu sheegaa dad ganacsiga fahansan oo macaamiisha la